Soomaaliya markaas khatar ahayd Itoobiya markii la dagaalay Soomaaliya waxa macnaha ahayd 77 waxa soo bixisay 22 dawladood annaga dadka caan soo adduunka caan ka ahaa jirnay marka mideeda kale to markii Yuhuudi iyo Masar ay dagaalayeen Soomaaliya waa la ogaay macnaha macaawino ee Soomaaliya ay dhiibtay wallahi loo yiqiin laas qoray oo gasacada askarta cun jirta ashan diirood Masar loo geeyo Soomaaliya macaawin dhiibaysa marka annaga dad Soomaaliyeena waa hal luqad ay leedahay dad walaalahan nahay qabiilkan hala dhaafo iyo laaluushka iyo beenta iyo barbaganta hala dhaafo markii wax la dooranayna si daacad oo Ilaahay og yahay oo sida Soomaaliya saxda ah wax loo doortaa koow mideeda kale to annaga Soomaaliyeed dad nahay dad la yaqaan nahay adduunka caan ka nahay Soomaaliya waa la hadlay jiray baan Soomaaliya waa sida saxda ah oo la yaqaan marka mideeda kale to Soomaalida markay qurbaha ay joogan waa isjeceliin أنا ولا عرفت جوج جري هذا كور سومالي وحير ما لا يدو سان لو وضع فديو عرفت ما كيلو جوج وحيله وراي يورم في عنك أبوسها هيدا أنت تلقى الرئيسي ما كنا قلنا قايد كله وضع فديست مركز ونك خلوا حال سكوت قال أنا ديبا لا سكوت قال أنت مركز سومالي ماذا يويا حويا وحاس مقنوع هو ما في عنه مركز فانتنا ومن سومالي مدة ذكرتنا قبيل كان ما في عنه سومالي وهل مدة ذكرته سوماليا إلهي laga baqo salaada hal dukado ma arkay dadka si fiican loo hadlo ayda la iska dhaafo flagaadada hal joojiyo qabiilka maasaq hal joojiyo lama shaqo soo helaa shaqada markuu soo helaa xaleel luushkan $500 keen $500 doo haasta shaqo ma baadi leeyba marka waxaasna ma fiicno waa waxa laga ma fiicno anaga marka goorma ugu gaarina marka waxa way waddanka shidaala ka buuxo professor yaal online hay aqoon-yahan online waddanka sidaan aan ka qodobno dagaalka aan joojino Soomaaliya mid way gacnaha la isqabsado afar qabiilka la joojiyo Soomaaliya marka waxaan la hadlaa aboonadooda way xiseen Soomaali adduunka dadka uu fiican oo uu nasab fiican nahay dadka uu dhul fiican nahay dhulkayna qeyrada ku jiro carabta hadda wanaag furaysaana ka hoosay waa fahamsan oo Soomaaliya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aboonka aboonadooda xiseen Soomaali